Wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada dowladda oo garab ka helaya maleeshiyaadka deegaanka ay la wareegeen deegaanka Booco oo ku dhawaad 50 kiiloomitir kaga beegan magaalada Beledweyne. Sida wararku ay sheegayaan in ciidamada dowladda Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa maleeshiyaadka ay si nabad ah ku galeen deegaanka oo in badan sanadihii la soo dhaafay ka maqnaa gacan ku haynta ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. deegaanka Booco ayay saraakiishu sheegeen inuu muddo ku siman 13 sano ay maamulayeen Al-Shabaab, balse deegaanka iyo deegaano kale hoos tagaba maalmahan ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka wadeen howlgallo kala duwan oo lagu xaqiijinayo amniga guud ee deegaanada hoostaga gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabelle. Saraakiisha howlgalka ka qaybgalaysay ayaa sheegtay inuu sii socon doono inta ay ka galayaan deegaanada kale aysan ku sugnayn ciidamada dowladda Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo dhankiisa ka mid ahaa xubnaha hogaaminayay ciidamada galay deegaanka ayaa shacabka ugu baaqay inay kaalin ka qaataan sidii loola wareegi lahaa deegaanada ka maqan gacanta ciidanka dowladda oo xilligan ku wajahan deegaano dhowr ah. gobolka Hiiraan oo ka mid ah gobolada ay ka socdaan howlgallada ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa inta ay socdeen waxay ciidamada dowladda Soomaaliya la wareegeen deegaano dhowr ah oo hoostaga gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabelle. waxaa deegaanada kale dalka ka socda howlgallo kala duwan oo sidaasi oo kale lagu xaqiijinayo amniga guud ee dalka. Axmed Bukhari, warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso. kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna Facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.